حسن الشيخ عاوة قول لما فلان هو قاري وين أوجه soomaalina muuqaalka markaa daawatay kadib waa fahmi doontaa mucaaradka oo laba gool iska dheliyay ayaga oo tareeto dalaq maxaa laga wadaa marka horta maanta kulankan mucaaradka iyo madaxweynaha dhex maray wuxuu ahaa fursad dahabi ah ayuu ahaa mucaaradka oo awoodooda iyo inay midaysan yihiin oo mowqifyada ay ka midaysan yihiin oo hal ay yihiin inay yacni isku taan fursadaas dahabiga ah way gaftay weliba kaaga sii daranaya waxay muujiyeen in habacsanaan weyn ay jirto tusaale idin wadaa yaaya jameeya madaxweynaha gambiya qiso ku dhacda idin wadaa laakiin marka hore waxaa labadan qodob ila fiiriya waa qodobka koowaad siyaasadda waxay u baahan tahay diyaar garow siyaasad weliba kulanka maanta madaxweynaha ee mucaaradka iskugu imaadeen waxaa laga rabay mucaaradka inay la imaadaan scenarios kulankaas ama haddii lagu heshiiyo ama lagu heshiin waayo in scenario u diyaarsanaado scenario maxaa laga wadaa scenario waxaa ka wadaa tusaale ahaan haddii saaka ay wax isku afgaran lahaayeen madaxweynaha ee guul ay ahaan lahayd qodobadii iyo siday u hadli lahaayeen iyo qofkii u hadli lahaa ee horboodayay taas ma dhicin soo maaha scenarioga labaad wuxuu ahaa kulanka waa lagu kala booday madaxweynaha waa isku afgaran weynay ayadana inay isdegdeg ugu diyaarsanaato waxay ku hadli lahaayeen qodobada ay soo saari lahaayeen iyo sida shicibka soomaaliyeed iyo caalamkaba ay oola hadli lahaayeen nasiib xumase kulanka markii lagu kala booday 2 saac oo guriga Sheekh Shariif la isugu tagay kadib mucaaradka caawa waxaa lagu heshiiyey guryaheena aadno ayaga ka dhex tafatay taas oo guul darro weyn u ah dadkii dhan ee mucaaradka ahaa ee dowladda dhisi doonaan oo waa midaysan yihiin oo waxbay fahansan yihiin lahaay caaw guul darre u tahay xaqiiqatan ninka xasan sheekh ahaana si lama filaan ah gool uu oga dhaliyay cidaas oo caalamkii na indheenayay ee rabay inay horta xasan sheekh ani ilama aha caalam hadda jecel oo nin karti leh u malay inuu jiro ilama aha laakiin mucaaradkii la rabay inay fursadaas ka faa'iidaystaan ee kartidii iyo adkeysigii iyo midnaantii ay muujiyaan la rabay iyagaaba gool oo tareeto iska dheliyay dalaq oo dadkan haddaba shir jaraa'idba ku heshiin la dal inay dhisaan kuma heshiinayaan waaye qodobka maanta ciwaanku u ah safaaradda ingiriiska maraykanka ee safaaradda ingiriiska muqdisho safaaradda maraykanka ee safaaradda maraykanka muqdisho safaaradaha kale ee muqdisho mucaaradkii sidaasay gool ayaga aysan filaynin horta isaga dhaliyeen beriya marka soo kici doonaan oo waa hadlaynaa dhihi doonaan kulley marka waxaa laga rabay scenaria dadkan dad diyaarsan inay ahaadaan hal mar aad idinka dhex galo waxaa idin soo qaadanaya ninkan waa madaxweynihii hore ee Gambia yaaya jameeya waa taqaaniin BBC iyo waa ka maqasheen ninkan jagadaas ugu fadhiyey uu xilligii markii doorashada la gaaro uu basireenayo uu xilli sanad wuxuu ku sii dirsan jiray adiga 2 sano 3 sano 4 sano uu iska sii wato markii dambe faa'iidada asaga 12 sano 20 sano xitaa maasaada uu jagada ugu fadhiyay waxay tahay mucaaradkii dalkiisa kala daadsanay markii dambe nin dhalinyaro ah oo dhalinyarada reer Gambia afkoodana kula hadli karo siyaasiyiintan afkooda kula hadli karo intuu yimid ilbaabadii mucaaradka dhan gargaraacay oo yiri kaale isku imaano mucaarad hal ah oo hal tiir ah adag aan dhisano hal nin ha noo hadlo ninkaas dhalinyaro ha ahaado hal meel soo wada jeesano mucaarad ahaano laakiin hal af aan ku wada hadalno oo yaanan tafaraaro iyo nalaga dareemin ninkii yaaya jameeya ahaa markaas luu ogaaday inuu gurigiis bi u soo galay ultimate waxay tagtay mucaaradkii oo midaysan markuu dunida arkay qolada gaar ahaan qolada loo yaqaan ECOWAS oo wadamo dhankaas Senegal ay ku jiraan ah ciidamada la soo diray si ninkan uu xog ku joogay madaxtooyada xog looga soo saaro ciidamo Afrikaan isku dhaf ah la soo diray mucaaradkii waxay uga faa'iideysteen ogana guuleysteen xagga diblomaasiyadda xagga sida caalamka loola hadlo xagga sida dhalinyarada reer Gambia loola hadlo iyo sida muxuu ah aftaan loo noqdo hal qof ee u isticmaalaan inuu u hadlo inta kale background anaga dhibkan haysta wuxuu yahay mucaaradka markaa fiirisid mid walbaba asaaxabad ku soo taagay Cabdiraxmaan Mashkuur wuxuu in la arko Sharmaake in la arko raba Khayr in la arko raba Sheekh Shariif ana kaabaladan ana meesha urdaayo kii kale ayaga waa odayaal hal qof oo dhalinyaro ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed afkooda kula hadli karo ama xitaa baraarujin karo kuma jiro dadkan waa dad siyaasad Soomaaliya soo arkay laakiin waxba aan ka fahansanayn siyaasadda at all caawa ay taas ku cadaatay oo meelba waxay isku raaci waayeen shir jaraa'id in la qabto warka gabagabadiisa wuxuu yahay
xasan hadduuba idinka raayay oo caawa 2 gool idinka aadan filaynin oo tareeta iska dhalseen oo saas caawa ku seexday nimayow horta saan wax ka bedela mucaaradka muuqaalkayga waa dhalinyaro ay sheegtay way daawadaan saan wax ka bedela wejiyadan aan na hor keentaan ee aan baranay wareejiya dhalinyaro soomaalida sida loola hadlo taqaano siyaasadda diblomaasiyadda adduunka taqaano ee scenario dejin karto oo mideysan oo hal idinka dhigi karto meesha keena saan waxba idinma soo kordhinayso xildhibaannimada xitaa inay ku weysiin ayay aniga aaba ii muuqataba micnaha taas inay dhacayso marka waxaan rabay ummad soomaaliyeed halahaas yar inaan u faa'iideeyo caawa xasan kuley ani ilama ahayn xasan sheekh inuu filaayay raggan inuu gooshaas yani uu ka dhalin doono beesha caalamkana indhihii u taagin hadda iga sii qor mucaaradkan ayagoo taageersan ma arkaysid inta ay saas yihiin waa in aamidoodaan saan wax ka bedela xitaa haddii micnaheeda ay tahay idinka background ah taga sawir dambe oo idin qabanin dad kale oo afka yaqaano soomaalida la hadli karo oo soo celiya maxaa yeelay dowladnimada soomaaliya hal midaa ridi karto hal midaana toosin karto waa ummadda soomaaliyeed askari meel qor ku wato iyo maamul goboleed tuug meel iska haysto iyo ugandhes santunji meel kuu dhex fadhiyo waxba ma tarto ummadda soomaaliyeed ee libaaxyada hurdo ah waa hurdna anaga mogta qofkii soo kicin lahaa keena